maanta inta meeshan aan ku fadhino waa raggii la dhihi lahaa cidna uma maqna ceelna uma qodna badanaa waxaa laga hadlaa dowladdu wax bay wadaa laakiin xoogga ay ku tiirsantahay waa idinka runta marka la sheego shacbi ahaado weliba dadkii dhaqaalaha waddanka gacanta ku hayay oo sector walba leh arrintaa waxaan u leeyahay waxay tahay covid-19 warqado badan oo ka qorqoreeya ayaa jira covid-19 mashkilad weyne ahayd adduunka ayuu ka dhaca keliya maahe soomaaliya si aad u saameeyey dhimashada ka sokow dhaqaalihii dalka dhaawac u gaarsiiyey cid kastoo halkan fadhisa usan taaban male ha ahaado kii ganacsanaya ha ahaado telecommunications waxaa dhihi lahaa banankii xawaaladihii dayaaradihii meel dhaqaalaha uusan ka taaban male taa waxaa nooga sii daran sanadkan sanad fiican ma ahayn waa aragteen adduunka waxaa ka jira waxa la yidhahda climate change waxaan u malaynaa soomaalida kuma baraarugsana in cimilada ay isbedeshay xagaa ha u shaqaynaya xagaa gu u shaqaynaya jiilaadsi u shaqaynaya isbedelaa ka jira adduunka beri dhexaas xataa khatar aan ku galnay badda dekada dhanba inay naga tagto tuufaana soo kacay hoos bay biyaha ka soo daysay waa garan kartaan khatarta ka imaan karta intay tahay taa in lagu baraarugsanaado waa soo jeedin lahaa covid-19 markaan u soo noqdo marka covid canshuur keliya ma ahayn inay hoos u dhacdo badanaa marka wasaarad ahaan anugu dhaqaale yaqaanaan ahay labada shilin oo soo gasha keliya kama fiiriyo meesha dhaqaalaha intuu u gaarsiiyey waa aad iyo aad ayuu u saameeyey dowladda waxa weye dakhligeeda hoos u dhacay 8 ilaa 10 milyan per month bil walba waa sii socday dakhliga marka laga hadlayo waxaa sii raacay aqoon ahaan u arkaya waxay xawaaladii dhaqaaqooda xataa iyo baananka because systemka aan ku shaqeyno weli annaga ma haysano international systemkii oo lacagaha ay iskugu gudbeyna ma haysano ma rabo inaan hoos u sii karo xog ogaalaan ka ahay waxa dalka la keenaya ganacsatadeennu waa dadaaleen waxa dalka ay keenayeen waa xoogaagii lacagta ah ay dibadda ku hayeen ka jiray ayay ku keenayeen waad ogtahay oo marka wax la iibiyo lacagta kale waa inay gudubtaa ma qaadi karaan dhibaataa ka gaaray waxaa sii dheer xawaaladaha waxaa u dheer soomaaliya over 2 billion lacaga waxa ay ka soo geli jireen nimanka la yidhahdo diasporada waa shaqadii waa istaag shaqo male oday oo pension anoo kale iyo duq soo hartay iyo kuwaas pensionka la siiyey ayay soo dirdiri kareen laakiin shaqaale ahaan dakhli ma galeen marka waa garanaysaan remittanceku dhibaatada u gaarsiiyey wax jiray ahayd waxaan dareensanahay maraan weydiiyey ingiriiska $200 ka badan ma diri kartin la yaro qofki dhibaatadasaa gaartay waxa la keenaha waa idiin sheegay exportka soomaaliya maxay dhoofin jirtay waxa ugu weyn waa xoolo waxa kala soo hara waxay tahay liin iyo sisin iyo waxa la qaadi jiray awood waa loo way waa aragteen oo waxaa qaatay biyaa qaaday meel kastoo soo jeesteen inaan ku dheeraado ma rabo guddoomiye arrintu covid ka sheekeynteeda maaha waddankan khatar buu ku jira waa idiin sheegay odayaana soo saar haddaan loo jeesanin dhinaca wax soo saarka 10 in laga qaatay ayd covid haddaan dhinaca wax soo saarka loo jeedinin gabayre asxaabtiisaan ku dhaga hadlaya beerihii haddaanan la aadin waxba ma shaqaynaya runta aad waxaan ugu faraxsanahay wasaaraddan aan ganacsiga aan aad iyo aad iyo aad waxa aan raadin jiray
tan iyo yaraantayda oo ahayd free trade zone soomaalidu ma gurin waddanku hanti wadaagu soo ahaa waa laga carari jiray hadda haddaad keenteen yaa wasiir taariikhdaad meel weyn ka gelaysaa runtii markaad rabtid waddankuna wuu isbedelaya ganacsataduna waa ugu hambalyayna meesha free trade zone inay ka shaqaystaan alaabay keeni karaan lagama canshuuraayo waxaan heli karnaa fiiriya waddamada nagu wareegsan dekedaheenni haddii loo helo meelo ay wax laga dhoofin karo waxaa la tartami karnaa ma rabo walaalaheen kale inaan waxaas yidhaahdo waa isnaqaan waxa weeye meel ganacsiga lagu horumarin karo warshadaha laga dhisi karaa oo canshuur laga qaadeen waxaad samaynaysaa transshipment alaab baad keenaysa haddana waad sii qaadaysaa waddankiina waxbay ka taraysaa dhaqaalihiisii horumarna waa samaynaysa gudoomiye waxaan soo jeedin lahaa anugu marka inaan dheereeyo ma rabo waxaa fiican arrintanu covid way ka weyntahay oo 2 maalmood laga hadlo waddankan badbaado baaya waxaan soo jeedin lahay meeshan waxaan ka arkaa odayaashani dhaqaalaha gacanta ku haya khayr allah siiyo meel ay ka soo bilaabanaan ogaa anu maanta meel bay soo gaarsiiyeen maanta meeshay soo gaarsiiyeen effortka ay soo sameeyeen ka weynaa looga baahan yahay maanta ka weyn aqoon-yahano fara badan oo jeeda ragga qaarkeen macallin soo PhD wada ah dhaqaalaha ka shaqeeya beeraha ka shaqeeya inna uma qodna markaan leeyahay inna uma maqna eelna uma qodna kii dhaqaalaha waa joogaa kii aqoonti lahaa waa joogaa arrintu ganacsi kaliya maahe waddankanu wuxuu u baahan yahay in la aruuriyo yaanan iloobin saaxiibkii xaggayga fiira cabdi axmed siyaad wax kasta waa haysanaa mana aqaan anigu wuxuu waddankan u fadhiyo arrinta la leeyahay dowladdu maxay qabatay ha laga baxo maanta private sectorka wax maamuli karo gabayro private sectorka maanta taagan inaad arrintaas ku baraarugtaan covidna laga sameeyo dhaqaalahan dhacay daraasad loo dhan yahay maxaa yeelay qolooyinka aeronauticada diyaaradaas waday waa fariisteen dhaqaalahoodii waa fariistay diyaaradihii way fadhiyaan kow ganacsigii waa fariistay meel wax laga keenaayo male adduunka ogaada raashiinkii bannaanka ka imaanaya cid ku siinayso male lacag kastoo aad wadatid that's why anigu aan leeyahay ha loo jeesto in wax la soo saaro yaanan ku dheeraan waxaan rabaa aqoon-yahanada in la sugeeyo ganacsatadeenna waa joogaan daraasad loo dhan yahay waddankan haddaan laga samayn maalinba waxay taaga diyaaradaha la joojiyey iyo meel sida ka dhacday waa iga rara lahaaday waa ku dheeraaday taasaan soo jeedin lahaa in la helo daraasad loo dhan yahay waddankan itijaahu u baahan yahay in la meeleeyo waa iga rara lahaa waa mahadsantahay gudoomiye dalbile show waa bandhig wareed loogu talagalay in lagu soo bandhigo horumarrada kala gedisan ee dalku ku tallaabsanayo gaar ahaan dhinacyada ganacsiga iyo wax soo saarka waana hindiso u gaara shirkadda adeegga warbaahinta sima mediya oo aqoon iyo waayo aragnimo durugsan u leh bilidda ganacsiga iyo horumarinta dhaqaalaha ciddii haddaba danaynaysa in howlaheeda ganacsi lagu soo bandhigo dalbile show waxay nagala soo xiriiri karaan ciwaanada hoos ku qoran soo gudbinta barnaamijkan waxaa taabageliyey milga media productionis